kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo aan idinkaga hayno magaalada Dinsoor. Degmada Dinsoor waxay ka mid tahay degmooyinka ugu caansan gobolka Bay. Xilligii dawladda militariga waxaa lagu sheegi jiray inay tahay degmada labaad ee gobolka Bay. Juqraafi ahaan waxay ku taalaa koonfurta magaalada Baydhabo oo ah caasimadda gobolka Bay. waxayna u jirtaa marka la maro wadada tooska 120 kilomitir haddii laga wareegto dhanka Qansax Dheerana waxay u jirtaa 150 kilomitir. Dinsoor waxay xuduud la leedahay magaalooyinka kala ah Baydhabo, Burhakawa, Qansax Dheere, Saakow, Bu'aale, Qoryoole iyo Baraawe. Dinsoor waxaa ku wareegsan buuro marka laga reebo dhanka waqooyi oo ay ku leedahay dhul beereed aad u weyn iyo daaqsinka caanka ah ee Doy. dhulka hawdka ah ee Doy waxaa ku yaala dhirta noocyadeeda kala duwan kuwa xoolaha daaqan iyo geed miryooda. waxaana ka xusi karnaa geedaha galoolka, xararka, yaaq, qaraca, cadaadka, xananka iyo miro noocyo kala duwan leh oo aan ka soo qaadan karno xamuurka, gubka, mareer, xanshiile. Dinsoor waxay leedahay dhul banaan oo dooxooyin waaweyn oo xilliga roobka da'ayo maraan biyaha xareeda ee ka soo rogmada buuraha iyo dhulka taaga ah kuwaas oo ugu dambeyn ku shubma webiyada Jubba iyo Shabeelle. degmada Dinsoor waxaa soo maray 23 gudoomiye degmo waxaana ka soo qaadan doonaa kuwoodii soo maray muddadii u dhaxaysay 1942 ilaa 1990. Muunye Deere, Hussein Axmed Yaakow, Ali Konte, Hassan Qararac, Jibriil Maxamed Qaasim, Maxamed Cismaan Baarbe, Cabdi Gabayre, Isaaq Bataar iyo Madoowe Nuno Maxamed. gudoomiye ku-xigeenkii hore golaha guurtida Digil iyo Mirifle ugaas Barre Cali Maadi oo aan ka weydiinay taariikhda degmada Dinsoor xilligii la degay iyo goortii degma ahaan loo qaybsaday ayaa wuxuu inoo sheegay in degmada Dinsoor la degay 1920 wixii ka horeeyay xilligaasna waxaa loo yaqiinay Kaxarey in lagu magacaabi jiray Durow Robow oo ku duugan baar dheere ayaa helay ceelkii ugu horeeyay degmada Dinsoor waxaana loogu magac diray ceelkaas Deenley. degmada Dinsoor waxaa lagu xukumi jiray baar dheere inta aysan ka mid noqon gobolka Bay kolkaas oo ay noqotay degmo buuxdo. Dr. Ismaa'il Haadi oo kamid ah qurbo joogta ka soo jeeda degmada Dinsoor aan isagana wax ka weydiinay ayaa isagana warbixintan kooban naga siiyay degmada Dinsoor. ugu horreyn horta deegaankan la yiraahdo Doy waa runtii deegaan aad iyo aad u ballaaran waay Soomaalidana inta badan taqaana wuxuuna ku fiican yahay xagga xoolaha xagga daaqsiinka aan dhaho iyo guud ahaanba xagga beeraha laakiin xoogiisu waa xagga daaqsiinka. marka deegaankaasi baaxadda leh aan dhihi karo ilaa wuxuu ka kooban yahay 132 kilomitir square ah. haddii ilaa Bu'aale loo sii socdana uu gaari karo ilaa 212 kilomitir. waxaa ku nool inta badan 90% aan dhihi karo ama 95 beesha la yiraahdo Dabare. beeshaasoo si ballaaran meesha u degan. marka haddii oo tuulooyinka aan kuu sheego tuulooyinka horta way kala yihiin qaar waxaa jiro oo 70 sano 80 sano ugu dambeysay la deganaa oo maanta aan dhihi karo haddii loo baahdo qualificationkii xagga degmooyinka way la imaadeen. marka way jiraan kuwa kale ayagana isla tuuladii ah oo weli tuulo ay joogaan way jiraan. marka dhinaca haddii aan aado waqooyiga aan ka soo bilaabo tuulada ugu horeyso oo Doy ka bilaabanayso ama beesha Dabare degan waxaa waaye Tufka tuulo la yiraahdo waaye Tufka ama Tifka waxay u jirtaa Qansax Dheere 18 kilomitir. waxaa ku xigto Iidaale oo inta badan Soomaalida ay wada taqaano Etoobiyaankii iyo maxaakiimtii si fiican ugu dagaalamay meesha waa tuulo weyn waa Iidaale. waxaa ku xigto Safar Noolees ayadana tuulo weyn ah. waxaa ku xigto tuulo la yiraahdo Wareeg magaceedu waa Wareeg. waxaa ku xigto markaa soo dhaaftid tuulo kale oo ayadan la yiraahdo Dhaysile. kadib waxaad imaanaysaa magaalo la yiraahdo Misra.
magaalada Misra waa magaalo weyn runtii populationku ku nool could be 30,000 to 40,000 30,000 ilaa 40,000 cagcagaynayso meel istaraatiijina ku taalo dadkii halgamayaasha ahaa ama sayidiyadii dhulka deganaa ama talin jiray ama diinta loogu imaan jirayna meelaha waa meesha ay ku aasan yihiin waaye oo ugu horeeyay sayid xaaji ibraahim sayid xaaji faqi sheekh maxamed xuseen odayaashii waaweynaa meesha ku aasan waaye waa magaalo weyn Misra ayaa la yiraahdaa Misra markaa ka soo tagtid waxaa ku xigto meel la yiraahdo tuulo la yiraahdo Shiidkoos waxaa lagu yiri Shiidkoos markaa soo dhaaftid dhinaca bari markaa fiirisid marka halka aad taagan tahay waxaa ka jirto tuulo la yiraahdo Tugaar Hoose ama Tugaar Hoos waa koonfur bari waxaa ku xigto oo Waryaroy ama sida ay u yaqaanaan Waryaroy Ilkoole markaa dhaaftid waxaad soo gaaraysaa tuulo la yiraahdo Raaxoole ama Raaxoole Dabare markaa soo dhaaftid Raaxoole aad soo dhaaftid waxaad imaanaysaa magaalada Diinsoor magaalada Diinsoor waa iyadana magaalo weyn aan dhihi karo degmooyinka koonfurta Soomaaliya ku yaalo waa degmada labaad ugu ballaaran estimationkii ugu dambeeyay United Nations sameeyay 2009 waxay dhaheen waa magaalada labaad populationkana waa over 100,000 people waaye 100,000 iyo in ka badan county bay noqon kartaa waxa anaga wadamada reer galbeedka aan ugu wacno county waxaa la yiraahdaa ismaamul gooni ah waxaa ku xigo Buurmadow tuulo la yiraahdo Buurmadow markaasi waxaan ka hadlayaa koonfurta waxaa ku xigto tuulo la yiraahdo Galgalbiciid waxaa ku xigto dhowr tuulo kale kadibna waxaad imaanaysaa magaalada Yaaq Baraaway ama Baraaway hadba saa u taqaanid waa iyadana magaalo weyn oo 80 sano jirto oo Diinsoorna u jirto sida la ii sheegay 70 kilomitir waa magaalo weyn oo populationkeeda ilaa 40,000 cagcagaynaya iyadana kadib markaa ka tagtid tuulooyin kala meesha ku jiro markaa ka tagtid haddana waxaad imaanaysaa Kanaanax ayadana waa magaalo kale oo weyn ayadana population leh ilaa 30,000 to 40,000 marka runtii tuulooyin badan baa marka u dhaxeeyo deegaanadan iyo magaalooyinkan hadda sida Diinsoor ilaa Yaaq Baraaway ilaa Kanaanax kadib Buulo Ooman kadib waxa way Arabow kadib ilaa dhinacaas iyo Bu'aale ayaad aadaysaa marka insha Allah wixii tuulooyin aan ka tagnayna waa soo gudbin doonaa sidaasaad ula soconaysaa marka insha Allah salaamu calaykum warbixinta gaarka ah aynu ku eegaynay degmada Diinsoor halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa iyo aragti dambe oo xiiso leh